Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ma ka dareentaa xabadka dhinaciisa xanuun iyo cadaadis daran oo aad rabtid mar walba inaad jicisid ama riixdid ama iskala jiidid si aad u nafistid? Marka qufacdid ama xoog u neefsatid ama meel kaa sarreysa wax ka laacdid ama u jiifsatid dhinac laga hayo, xanuunka ma kugu ziyaadaa? Baaritaanno shaybaar iyo raajo aad isa saartay wax ma lagu arki waayey? Haddii jawaabtu haa tahay, cashirkan adigu kugu socdaa ee aqoon u yeelo lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Ciladan waa caabuq ama hurgun ku dhaca carjawda isku haysa feeraha iyo lafta sakaarta, taasoo afka qalaad lagu dhaho costochondritis. Waxaa badanaa xanuunkan lagu qaldaa wadne qabadka. Waxay badanaa ciladan ku dhacdaa feeraha kore iyo lafta xabadka meesha iska galaan, weliba u badan dhinaca bidix sida sawirka ka muuqdo. Ciladan hal feer way ku dhici kartaa ama dhowr feerood. Waxa keeno ciladan badanaa lama fahansana, laakiin waxaa loo badiyaa inay ka dhalatay jug hore, qufac daran oo ku soo maray, jimicsi si qaldan aad u samaysay, ama fadhi aan toosnayn sida in xusulkaaga ku santicsatid mar walba. Ciladan rag iyo dumarba way ku dhacdaa, laakiin waxay ku badan tahay dumarka weliba ka weyn 40 jir, sidoo kale dhalinyarada weliba kuwa ciyaartoyda ah ama jiimka sameeya. Xanuunkan baaritaan laguma arko, waxaa lagu ogaadaa kaliya wareysi iyo weysiteyn, waxaana loo qaataa daawooyin hurgunka yareeya iyo barar dejiyaal. Wixii su'aale ah noogu reeb qaybta commentiska, waana mahadsantihiin.